kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka telefishinka Universal oo idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah agaasimaha cusub ee madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya ee uu dhawaan magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wareegay xilka. Aabaha dhalay Ikraan Tahliil ayaa sheegay inaysan qaadan doonin diyo isagoona baaq u diray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya. taliska booliiska degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo bandhigay rag lagu eedeeyay kufsiga dilka gabar shan jira. Mid kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa baaq u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamaya gobolka Hiiraan gaar ahaan Kabxanle iyo Deefo. Mareykanka ayaa laga xusay 20 guuridii ka soo wareegtay weeraradii 11 September. Qodobadaas waxa ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon. markale kulanti wanaagsan daawadayaal warka waxaan la socodsiinaya anigoo Maxamed Ciise Koona aan ku bilaabay aabaha dhalay Ikraan Tahliil Faarax ayaa sheegay inaysan aqbalayn qaadashada diyo isagoona baaq u diray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya.